إلهي بكلجي مهد له صحافة ويدي كم مهد نقيا كلن كان كلمة آذو كوبان أيان دنيا ما تنا إلى هذا شرقدون كأقل كشعب كصوماليا حمر كوياله أيا وركسوا بحي أرجع حليه رنتي أرجع حليه أنا قلت لك دين تأيو نقنك لبضع إلى ليان ونهاي شرقدون كاس قبل كم ده أيان نجيستي مقال لقى صوت دوبي يقرأ لقى قري وحيكون دو ذيسا وحن أبحيان جنسية أما إن ده وحنا حتى كو أفكار صومبري كرنا بما هي إن دتك رجع يدمركو جور كأنه نقانة أنت لقى جورو يجوا حسوا دونتان أو عالم القلبات لقى كياني أما دقن كان قلبات يجارة لقى سو واردي مركا قبل أسبوع هذا هاي دتك هدي أنا إلى لون وإذا أنا يدور مرسية كذي كان يسا دينتي علماء دي مرسية كذي كان يسا وحلا هذا هاي ولا وذا قالوا بيه وصدنا على نقونية وآخر كانوا وحلا هذا هاي هدان حير كاتشنسي جميل مرين وايو مقدشوا إسكيتكي وأعرفنتي قف كستو إسلامه أرجع حجلينيسا قلنا حدين له أرنتها سندونيا ما تينان كلمة كإله هذا إن أنت أوحن كورن لها هرتا إلهي وصون نقو ومدن ومد إسلامه ومدو حاسي كسورة جليان ماها وحن كحصوص لها قبل إيانا وسيرة هيدا كاه الرئيسي واللي بقى قبل ده أقوم بانو لها إن يحير كان طيب برلمان كي هوري لكن لقد ديري وحن قاعد وحن بليين إياه وقد بقادين إياه ودومي كحجان كي هوري اللي أورنشري مودي وصفي عن الدينية وضدني ماله وقحط لي أرنتها هوري ويسوهر تاجي إسقي أقل كيسي هوري شعب كي هورا برلمان كي هورا أيو ديرين وقد بقادين إياه كنتي سماردا أورن شرتي ميل أركا كعي أتور فرفريسي قبردن ما أنت هذا شيء وحن لا هاي أنا قولي بكون استحينا أرنتها السورة قلي ميسو تاد إسلام بانو نهاي تطلقا لبانو نهاي تاد وحاسك السورة قليان منهن أديقونا كنقو أديق يعد مشروعك صوصي سي من دو السورة قلي ميسو تا إن أنت سان لا هاي صدح قرنا فريمان ودريايو مدوان مدحوينه حسن شيخ مدحوينه مقعقنا وحسن شيخ دقال دوا كجرتانا وجه إسلامية ودغيسان halkana waxana ka socda oo tii halkii ugu dambeysay dabal dib isugu noqdo oo arrimahan hoos u eega oo madaxweynaha arinta mas'uuliyadeedu aday ku hoos imanaysaa wax ka qabo golaha shacabka waxaan leeyahay gabadhu markay hadalka lahayd waxaan arkayay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxa leeyahay nin baabari lagu yiri inantii heblaha ku soo heestay wallahi wuxuu inantaa ay heestay laba yaabaniye ragga u heehaalaha ayaan la yaabanahay buuri golihiina shacabka waa wada qabtaan arintan waa shirgudoonkiini waxaan sameeynayaa iska daa idinkii odayaashii idin soo xulay baa dambigan ku dhacaya arinta shirgud baarlamaanow ama golaha shacabkow ceebta idin dulta la iska dulqaada oo golihiidi ka horeeyay sida aan u soo sheegay wuu iska dulqaaday oo magac iyo sharaf buu kaga tagay ceebha kaga tagina idinku qolada saddexaad la hadlayna waa Puntland oo inantani ka soo jeedo reer Puntland idinka lafdiinu arintu way soo galaysaa iyo ceebteeda iyo fadeexadeedu way soo galaysaa had iyo jeer reer galbeedka ama gaalada ama marka dumarka xuquuqdooda meel baa laga dhacaya marka waxa la shubayo dhaqanka Soomaalida dumarku waa cid ugu xuquuqda weyn leh laba qabiil waxay isku dileen gabadh baa jirta inta soo taariikhood baa dumarku leeyihiin iran sidaa loo eegay baa laba reer isugu rogmada Soomaalida waxa lagu maahmaaha nin waa maxay iyo waa inta gabadh ka soo hadhay bal maamaada xaqad ka dhaafi gabadhay marka leedahay xuquuq bay ga maqan nin waa maxay baa leey gabigiisuba waa inta gabadh ka soo hadhay baa leey waa hambo gabadh ka soo hadhay dhaqanka Soomaalida xuquuq dumar ka maqani ma jirtee qaribaad baa ka maqano nin reerkiisa iyo qoyskiisa rogmaday ayaa doonaya inuu inagana ina rogo
waxaan ku talinayaa inantaana mar labaad dardaarankaygu waxa weeye waxaa ka noqo kuu suurtogeli mayso waxaan ceebahayna kala tegi maysid haddaad ku sii adkaysato adiga taasaan ku idhi madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweynow arrintaa wax ka qabo oo soo gacan geli shacabka xamarra waxaan leeyahay dee mashaakilaadkan idinku qarxayaa arkaysaan waxaanubay ka bilaabmaya mashaakila soomaaliyaba shacab xamarba maaha soomaaliyaba dagaaladan dabada dheeraada iyo qaraxyadan iyo mashaakilaadkani waa waxaan cuqbadeedunba idinku qarxaya haddii wax laga qaban waayo intaas baan doonayaa maanta inaan halkaa ka idhaahdo somalilandna erey baan iyada odhanaya kooban khilaaf baa ka jira siyaasiya waxaan maqlayay gaalaa la sugaya islaamka waxaa la faray haddaa isqabataan kitaabka iyo sunnaha u noqdo bal islaamku markuu idhahdo gaalaan sugaya khilaafkayga xalilaysa bal ka warran islaamnimadiisa maxay noqonaysaa taas dadweynahaan u dhaafayaa intaasaa hadalkaygu maanta ku kooban yahay waayo waxaan uga hadlayaa somalilan iyo soomaaliya iyo waxaa arrinkaygu maaha annagu caalamulislaam wixii ku soo kordhay mashkilada baanu ka hadlaynaa hanka iyagu halkaasuu joogaa haddii xamar ay ka hirgasho halkanna iyadoo soconaysa noogu imanaysa waayo bad iyo buuritoonna inaguma kala gudbanaa marka halkeeda inaannu dagaalka ugu geyno wax kaga qabanno ayaa hadalkaygu daaran yahay oo aanaan sugin intay annaga noo imanayso hadalkaygu waa sidaa halkanna waxyaabaha ka jira halkanna waa ka dagaalamaynaa iyadana markeeda ayaanu haddii ilahay ka dhiga sidan oo kale uga hawlgelayna laakiin maanta hadalku wuxuu quseeyaa arrinta xamar ka socota ee gabadhaasi soo bandhigtay iyo inta kale ee aamusane hoosta kala socota ee waa mashruuco waanu ognaho reer galbeedkaa bixiyo dhaqaala lagu riixayaae hungurigu halkaa la galay waxaana ogaataan qof walba maalmo yar baad noolaanaysaa waxaana kaa dambaysaa camalkaaga mooye halkaan camalkaaga mooye halkaan ciirsi kala joogin nin walba qof walba godkaa yar baa kaa dambeeya iyo wixii adigu aad u shaqaysato fariintayda kalena waxaan u dirayaa oo muhima culimada muqdisho ama guud ahaan soomaaliyaba dee arrintan waa arrin diiniya dee inay ka hadlaan oo inay gabadaan maaha inay ka gabadaan maaha waa inay ka hadlaan culimada aad u dhiiranee had iyo jeer aan bogaadiyaa waa culimada nairobi joogta sida sheekh umal oo kale culimada kale ee soomaaliyeedna waa inay arrinta ka hadlaan khaasatan kuwa muqdisho ee ay meeshooda ka dhacayso waxaa kaloo iyana aan fariinta kale u dirayaa dee waxgaradka sida madax dhaqameedka oo kale waa inay ka hadlaan iyana ganacsatada waa inay ka hadashaa war dadku waxaan laga dul leeyahay miyaanay dad islaama ahayn war goormaynu sida noqonna ee qof intuu halkaa isa soo taago inoo yidhi raggu ha isguursado reer miyigii horaa ku heesi jiray engeel didaydidii male doonya isma qaadaan dumar ma guursado reer miyigii horaa ku heesi jiray ee dadkeennii hore war miyaynaan ummad nool ahaynoo islaama sidee qof intuu inoo soo dhex taaga u yidhaahdaa xeer baan riixayaa wadayaa odhanaya dumarkuna ha isguursado ragguna ha isguursado waa halkii lalahaa nin baa amla isgeliyo o yidhi war goormaa raggii sidan u dhinta war fadhigaan ka kacno waxaan wax ka qabanno haddii kale adduunya iyo aakhiraba waa ku ciqaabaynaa annagu intayadii nidhiye war ciddii kale xilkan u saaran yahay hadla